بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم رمان أصحاب تقييمه يغايها له كحران شبكة solarportal.com solarportal فيسبوك لايف يا solarportal يوتيوب هديودين رافو برنامج دق أيان إيمينك أوصو قلي أو أن هروح يسين أرين حساسية مهمة إيجا حناجسي idinka xanaajisay isla markaana si toos ah u soo abaartay waddankeena waxaan ka hadlaynaa waddanka Kenya oo asbuuc ka hor 10 maalmood ka hor diyaaradii tooska u imaan jirtay magaalada Nairobi ee Muqdisho joojiyay isla markaana galabta Ilaahay caaw ku dhaqaaqay arin si toos ah u abaartay wadnaha ama the core of the nation waddankeena Soomaaliya iminka intaanan soo gelin live-ka waxaan ka codsanayaa ugu hore inaan sii qaybisaan si asxaabta kale warkaan intaanan soo gelin live-ka waxaan qadka telefoon kula hadlay wasiiro agaasimayaal senatoro xildhibaano sidii arigii oo kale wax kale aan ku tilmaam male loogu hayo Jomo Kenyatta International Airport loogu hayo qaarkood waxay ku jireen 7 saacadood meeshay ku afureen meeshay ku wareegayaan waa dadkii annaga aan dooranay xasanada aan siinay xildhibaanada wasiirada ahaa agaasimayaasha ahaa amar ayaa soo baxay la yiri saaweed ma gali kartaan Kenya Somali ma aadi kartaan meeshaad ka imaateen ama Dubai hadaad ka imaateen ama Europe hadaad ka imaateen waxaanu ka hadlaynaa dadka watay wasiirada ahaa baasaboorada diblomaatiga ama baasaboorka Soomaaliga watay ayaanu ka hadlaynaa dadkii kale ku xayrnaa ee faraha badna iska ilow dadka caadiga ah ee isbitaalada u socday transitka ahaa ganacsiga u socday meel walba sii maray kuwa sheekadooda meel iska dhigba sababtoo ah magacooda lama yaqaano waa Soomaali waa ordinary wax la yiraahdo dad iska caadi ah oo magac lahayn waxa aad iga xanaajiyay caawa inaan saaxiib nahay oo senator ah aqalka sare ku jira oo ii sheegay 7 saacadood waqti ka badan oo airport ku jiray waxna loo sheegay ma lahayo yiri waxaan la yiri waxa dhacday in dawladda Kenya ay go'aan ku soo gaartay ay tiri baasaboorka waa in baasaboor diblomaati qofkii wata kan Soomaali qofkii wata waa in uu online ka apply gareeya ama meeshu ka yimaado ku noqda marka senatorkii oo kale oo u socday ka soo socday ka yimaaday wadamada Carabta ama Europe ka yimaaday oo u soo socdo wadankii Soomaaliya rab inuu ku soo laabto waxa la yiri maya meesha ka timaada ku xilnina sida ay yeelaan marka Europe aadidii meelaha kale arintana waxa loogu talagalay in Soomaaliya ka hadlimayno senator ama wasiir ama agaasime ka hadlimayno Soomaaliya in humiliation lagu sameeyo dhulka lagu jiido ayaa loogu talagalay 10 maalmood kama soo wareegin markii diyaaradda la istaajiyay tooska way imaan jirtay oo dadkii safka la galiyay diyaaradihii ka wada tageen live ayaan waxaan ka soo galay anoo markaas ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya waxaan iri dawladda Soomaaliyeed waxay haystaa fursad aad u wanaagsan opportunity dadka dawladda taageera kooda ka soo horjeeda mar walba waddanka Soomaaliya Somali state weerar lagu soo qaado noocan oo kala ah dadku mar walba dawladooda ay gadaal istaagaan oo leeyihiin dawladdeena waa inay go'aan ka gaartaa marka fursadaas waxa laga soo saaray waraaq runtii aan dhig kara tacbaan bay ahayd hadaan daacad u hadlo anigu waxaan sugayay ma sugayay Ethiopia ciidamada inay weer ku qaadaan Kenya ciidamadeena inay weer ku qaadaan sugi maayo laakiin waxaan u baahanahay dib nooma yaree in ma aragtay duufta intaan iska tirtirno I know diblomaatiga soo shaqeeyay iyo in wax walba aan lagu fududaanin oo balaayo la sameeynin laakiin dignitada sharafta iyo karaamada Soomaaliya markay tahay wax ku dhooran haba yaraatee ma jirto runtii caawa sayid ku sheegay marabin live soo galo laakiin haddaan telefoon ka dhigay nin aqalka sare ku jiro waa meesha ugu sareysa labada aqal ee Soomaaliya ee baarlamaanka raggi ka tirsanaa ayaa waxa la yiri sagxadaas ku afur waxa rabtaan sameeyaa la yiri ma bixi kartaa meel ma aadi kartaan waxa ma sameyn kartaan markaas waxaan weydiiyay xildhibaan ma jirtaa ilaan waxa jirta memorandum ama waraaq ama waxyaabo waxa jira qofka loo soo sheego oo la yiraahdo waqtigaas ayaa waxa la joojinayaa visa la'aanta lagu soo galo waxa la joojinayaa in
visa lagu qaato laakiin waxaa la siiya dadka hawada ku jira dadka soo baxay 72 hours la siiya waxaa la siiya 2 days 3 days qofka waa kasii baarandeey kara laakiin mar alla markii airportka ay kasoo degeen ayay ogaadeen ka hadli mayno xildhibaano xataa aan la aqoonin dad la yaqaano wasiiro agaasimayaal dad magac Soomaali kulle ayaa waxa la yiri waxaa tihiin male it's not necessary in afka laga yiraahdo waxaa tihiin male laakiin waxaa la tusay caawa la tusay in weerar kaliya ma ahayn qori lagu soo qaato lagu soo weeraro Somali nation Somali state aan naqaanay caawa duulaan waxa lagu soo qaaday cirka iyo dhulka waxa ku soo qaaday Kenya waxayna ugu soo qaaday waxa ku xigaya marka dambe waxaan arkaynaa madaxdeena ugu waaweyn ra'iisul wasaaraheena ama madaxweynaheena in la yiraahdo ka soo lugaya wajeer ilaa Nairobi ku imaada sababtoo caawa waxa ka dhacay Jomo Kenyatta International Airport wax adduunyada lagu arkaa bayraatay ma jirto Kenya xaqay u leedahay wadankadeeda iskale sida anaga Soomaali aan u leenahay Soomaali badan oo cod ka bixiyana way ku nool yihiin dhul Soomaaliyeedna way haysataa laakiin waxay tahay su'aasha mar walba la doonayo qof kastoo Soomaali inuu isweydiiyo why now hadda xilligan maxaa keenay Kenya waxay ku andacotay tiri iyaga iyo Ethiopia waxay yiraahdeen waxaan maqalnay weeraro in lagu soo wado tabcan xaq bay u leeyihiin wadankooda ay difaacaan marka diyaaradda aan naqaano security-ga aadan cadda international airport ka soo baxayso ma dadkii weerar ku soo qaadi lahaa intay passport airport la soo galaan luggage-kooda la checking gareeyo diyaaradda ay soo koraan ay soo duulaan markay Jomo Kenyatta ay ka soo degaan oo security-ga ay soo maraan banaanka istaagaan may weerar ku qaadayaan hadda waxa loo baahan yahay anaga Kenya kama aqli yarin nagama cilmi badna logic ayaa loo baahan inay ku fikiraan sheekadan waxa loogu talagalay wax kale ma ahan waa siyaasadaas oo ah Soomaali meel kasto in laga soo xiro oo pressure la saaro iyadoo la og yahay November Soomaaliya 100% inay ku guuleysanayso arinta badda maxaa kale lagu soo aadiyay bal isweydiiya saaka shalay ayaamahan maxaa socday oo la xaqiijiyay bal isweydiiya idinka baarlamaanka wuxuu codeeyay arintii petrolka ayaa la codeeyay marka adduunyada marka la rabo in laga dhaadhiciyo wax oo adiga lagu doonayo inaad xayawaan tahay Soomaaliyeed laga dhaadhiciyo waxa leeyahay Kenya dad ayaa ku farxaya waxay doonaan laakiin waxa loogu talagalay oo la yiri sidii maalintii Febraayo ay dhacday todobadeedii ay dhacday oo Kenya ay qaraxday oo madaxweynaheeni iyo Israaciil iyo Abiy Ahmed isu raacay Nairobi sidoo kale waay maanta waxa la yiri aan sugnaa la yiri mar alla markii xildhibaanada codkii ay bixiyaan in anigu waan sugay sababtoo ah Kenya reaction-ka ay sameysay waxay ahayd xildhibaanada haday codka bixiyaan bes way wixii waa la sharciyay meela martaa male asun mar alla markii codka la sameeyay ayaa waxa loo diray within 3 hours waxa loo diray source aan ku leeyahay oo civil aviation ka shaqeeyay Jomo Kenyatta ayaa waxay dhaheen caawa arin ayaa dhacaysay dhaheen laakiin marnamo filanin in dad diplomatic passport wata dad ma aragtay xasaanad leh xasaanada anaga noo leeyihiin marka in saas lagu sameeyay waxa loo sameeyay lagu soo aadiyay oo calculation lagu soo aadiyay xilliga xildhibaanadeena iyo wasiiradeena ilaa shaqa naga dhaxaysa dadka loo maran karo maxay u tagayaan lama oran karo wasiiro dhowr wasiir agaasimayaal waxay ku fakadeen passport Europe ay wateen waxaan idin sheegay dhageysa markan Kenya passport Somali iyo passport Kenyaati qof watay shaqo kuma leh Kenya waxay rabtaa qofka Soomaaliga ay doonaysaa waxa soo baxaysa meel iga qora qof xataa passport Ingiriis wata ama Talyaani ama Mareykan wata haduuba Soomaali yahay same category raggan caaw airport lagu hayo senatorada ah wasiirada ah agaasimayaasha ah dumar uur leh ah Soomaali dhan lagu hayo caaw airportkii Soomaaliya saan u buuxda dadkii Soomaaliyeed xataa aan la damiinan karin can you imagine xildhibaan adduunka kamid ah meeshu doon ha ahaado oo airport sagxadaas fadhiilay oo la yiri biya masqusha oo ka soo shubay Jomo Kenyatta ka soo shubo ku afur la yiri ka war arintaas ka dhacday caaw ma oranayo meelahaas aan ka maqlaysaan qof meesha joogo oo senator ayaa hadda telefoonka aan ka dhigay wuxuu yiri anaa baroona wuxuu yiri intaas sax joogdada iga horeeyay yiri iska ilow dadka ordinary-ga ah ee caadiga ah dadku waan kala saaraynaa sababtoo ah waxaan naqaanaa magacyada kaliya iyo wajiga iyo sawirada iyo video waxaan naqaanaa wasiirada waxaan naqaanaa agaasimayaasha xildhibaanada aqalka hoose aqalka sare iska ilow dadka caadiga oo masaakiinta ah maalin walba lagu dhibaatay meeshay maraan marka Kenya hadalkeedu waa cad yahay waxay yiraahdeen Kenya inay hadlaan uma baahna wuxuu ii sheegay senatarka waraaq lama soo saarin uu yiri wax noo sheega male waxayna yiraahdeen maxaan sameeynaa
de meeshan garigoon ayaan ku noqon maxaan sameynaa waxaa samaysan meesha ka imaantaan ku celinaya war meeshan ka imaana ma ahee diyaarad xataa Jomo Kenyatta waxaa loo diiday diyaaradda berri xamar aadaysa ee meelay doonto hamartay maraysa ayaa loo diiday inay xamar u raacaan waxaa la yidhi kii Dubai ka imaad Dubai loo celinayaa kii Maraykanka ka imaad Maraykan loo celinayaa kii Habarkuli ka imaad Habarkuli loo celinayaa marka waxay tusaysaa in dawladda iyo dadka Soomaaliyeed lagu sameeyay fadeexayn af Ingiriiska waxa lagu yiraahdaa humiliation lagu sameeyay af Soomaaliya kale cusub waxa lagu yiraahdaa dhulka lagu jiiday marka maxaa noo banaan hadda anaga Kenya waa naga dhaqaale badan tahay waa logic caadi ah xamaasad inay qaado ma ahan dawladda Soomaaliyeed fursad ay haystaa fursad labaad soo martay hadda Miro County eragaas meel fiican ku qortaan Miro County dadka socodaya waxay u badan yihiin Raila Odinga dadkiisa ay u badan yihiin kuwa kale dawladda Soomaaliya caawa haddii aan u ahaan lahaa advisor ama qof la shaqeeya la taliyaan u ahaan lahaa waxa ironic ah isma qabata ironic ah rag dawladda Soomaaliyeed la taliyo oo magacooda aan sheegaynin oo meelaha ugu sareeya la taliya ayaa caawa airportka Jomo Kenyatta International Airport lagu haya haddii aan ahaan lahaa la taliye ama qof dawladda Soomaaliyeed oo aan jecelnahay wadankeena haddaan ahaan lahaa caawa waxaan dhihi lahaa gaajo ma noo dhiman maya dhib ma noo dhiman cunaan qabtay ma noo dhiman maya ma rafaadnaha aan tusno 10 maalmood kaliya diyaaradahan sunta keena especially Ramadaanka lagu jiro hadda habeenkii dadka ay ku qaylaan millions kana qaato hala joojiyo dawladdii hore waad xasuustaan Xasan Sheekh dawladda ka horeysay maalmihii la joojiyay way isku dhaxqaseen marka sidii Ethiopia u oran jirtay Tigreega u yiraahdeen Soomaali arimaheena gudaha faraha kala baxaan waxay tahay qofka haddii uu ku qaniino waa la qaniinaa anigu ma aaminsani in Kenya inta qori loo qaato weerar loo gala dagaal loo gala I don't believe that sababtoo ah Kenya hadda xilligeeni ma ahan bisha November ayaa badda Soomaaliya oo binding waxay tahay loo ogolaanayo sharciyan loo ogolaanayo Kenya waxay isku dayaysaa oo ay qaswadaa oo ay conference ku samaysay video ay soo duubtay meel walba oo Soomaali ay ka taaban karto inay ka taabato ay ka qanjaroofato qanjaroofadii koowaad waxay ahayd waa la baroobeeyay marka haddii Kenya annaga Soomaali ah aqli ilaahayna siiyay dadka adduunka ugu xadaarada badan aan nahay haddii ayna tiraahdo Kenya xuduudkii Soomaaliya iyo Kenya waan xirnay sababta waxaan ka baqaynaa security issue waa logic waa la qaadan karaa sababtoo ah Kenya dad badan oo dadkeena ayaa lagu laayay anaga ma doonayno Kenya in dad laga laayo Kenya in security dib la galiyo ma doonayno laakiin logic markaas wuxuu ahaan lahaa xuduudku waa xiran kartaan sababtoo ah dad Kenyan ka adkaan weynay xuduudka ayaan adkaan weynay wadankeena caasimadiina meelaha kale waa idinku dhibaateeyay laakiin aqliga caawa Soomaalida la doonayo in laga gado iyadoo la iswaalin waxay noqotay diyaaradda sababtan u joojin waxay ahayd for security iyo weerar nagu soo socda marka ku laaban maayo erigan hore diyaaradda haddii aadan cadde rag hubaysan oo Nairobi weerar ay diyaar ka raaci lahaayeen oo immigration ka mari lahaayeen taas waa waali qof walba oo yaqaan hadda sanadadan ugu dambeeyay aadan cadde wuxuu noqday one of the most security airport in the world noqday ama ha ku ururiyo ama gacmaha iyo madaxa jeebka wax walba laga geliyo laakiin Kenya waxay u tala gashay caawa dadkeena in ay dhulka ku jiido wasiir I don't care senator I don't care xildhibaan aqalka hoose I don't care gabar uurle I don't care qof transit I don't care taas ay yiraahdeen caawa senatorka hadda aan la hadlay telefoonka wuxuu yiri xitaa haddii adduunka arin ay ka dhacdo qof loo tagaa waxa la leeyahay walaalayaal maxaa dhacay meesha noogu haysan Ramadaan ayaa lagu jiraa afur ma haysano meesha lagama afuro maxaanu sameyn karnaa dadkii dhibaataysan waxa la yiri we don't know koray ka timid la arinta sababtoo ah tii wajeer waa loo adkayso waa loo dulqaatay si fiican ay fahma tii wajeer waa loo dulqaatay waxa la yiri bal xoogaa xaalka aan dejino diplomatic cable hoos laga diray warsay wax u jiraan ilaan security-ga ma ahaanay mid saan ahaanay uu isbedelaya malaga inay soo laabato adduunka looma shaqeeyo in madaxweyne ama kama sugayna ra'iisul wasaare ama qof intuu meesho istaago uu buntuqiis halkan saarto Kenya la dagaalanay waxaas adduunka ma shaqeeyo adduunka dadka hadii daris leeyahay hadii xiriir fiican u dhaxay hoos laakiin annaga iyo Kenya hadda xiriir fiican naga ma dhaxay Kenya waxay rabtaa dhulka inay qabsato dhulkan way haysataa Ingiriiska siiyay qarni ka hor dhulka NFD la yiraahdo North Frontier la jiray marka hadda maxaa ku xigaya iimaanaysa maanta markii codkii la dhiibay petrolka ay badda way isku xiran yihiin baddaas iyo petrolkaas kadib waxa dhacday waxa la yiri sideen dhulka ugu jiidnaa Soomaali yaa ugu qiimo badan dadkooda hadda
ilaan annaga ama senator ama xildhibaan ama wasiir adiga ha taageerin haddaad doontid laakiin waxay ku socdaan astaanta qaranka Soomaaliyeed iyo calanka buluuga iyo baasaboor diblomaatiga ay ku socdaan marka waxaa la yiri si aan dhulka ugu jiidno waxba ma ahan kuwaane aan kulli wasiiradooda wasiir oo haysto diplomatic protection haysto oo markuu soo dega diyaaradda xitaa aan marin meesha dadka ay maraan diplomatic crew meesha uu maro inay maraan iska daayo waxaa la yiri meesha ka imaatay ku xilinaynaa oo qofka kule isla airportka aan ku jira maba ka soo baxay ilaan Wilson ka duuli maaye uu ku leeyahay isla airportkii waxaan ku dhex jiraa Jomo Kenyatta bal axsaan ismay ticketkii ana goosanay diyaaradda inta ka baxayso si security-ga aad u ilaalisa ilaan senatoradii iyo wasiiradii waxay leeyihiin security risk baatiin Soomaa airportka kuma jirna halkan aan ka baxaynaa بريت دياردن حمر ما راعي سنة ليري نيروبي إيو واحد كنا قلنا إنسان كامبالا إيو سود أفريقيا إيو إلى ماشان هو هاب ترانسيت ضد بدن وباس برا الصومالي وتجمع عشتها إمارات كيما ذا يجوجا ضد كيما ذا يجوجا إنديا كيما ذا إسبتالو كيما ذا يجوا هاب وماشى كسكو إسطنبول كسكو ماشان هو هاب صومالي لغة تلو هاب كواحد هاي ميل سنتر لغة جدبه مركز ضد كيوردن قف مانتا كليدا لجسوا بدلي oo Soomaaliya bal fiirsada iska iloow senator hadayaan soo qoranay senator iyo wasiir iyo la xire iyo dhanka fadeexad ama humiliation-ka qarankan lagu sameeyay ka sokow aniga waxa iga qiimo badan qofka kalida laga soo bedelay oo India laga keenay ardayga Bangladesh ka imaaday ardayga ka imaaday Mareykan ilaa dad badan oo Soomaaliya baasaboor diplomatic ama baasaboor caadi ku duulo oo residence u saaran Europe meel ka imaado qof walba waxa la yiri ama Canada ka imaw ama India ilaa lagaga soo bedelo ama kaliya lagaga soo bedelo waxaad ku laabanaysaa meeshaad ka timid marka taas waxay ku tusaysaa in dadkii naxariistii ka soo waxa la yiri Soomaaliya ilaa ay iska dhiibaan oo abeedkii oo Ethiopia-ka dhigi jireen ay sameeyaan labada gacmood ay taagaan dhulka lagu jiidayaa la yiri marka la ku soo celinaya haddii aan ahaan lahaa advisor dawladda Soomaaliyeed u shaqeeya ama wax ay iga maqlayeen waxaan dhihi lahaa Kenya hala qanjruufto waxa lagu qanjruufanayaa annaga waxaan haysanaa hub casri ah oo adduun qofna aan haysanin jaadkan Ramadaan ayaa lagu jiraa waa fursad qaali ah oo sunta ah ee qurunka ah ee mouth cancer dadka ku rida aan joojino yaan lagu afur ka bacdi lagu baashaalin hay yiraahdo dawladda Soomaaliya intay soo istaagto afhayeenkooda ama bulletin soo saartay tiraado hadday saas noqotay waxaan sameeynaa diyaaradda ama hala soo marsiyo laba transit sida hor u sheegay cadaadii gaalkacyo iyo baydhaba hala soo marsiyo ama gabiyahan hala joojiyo hal asbuuc bal gaajo aan u dhiman haddaan gaajo dhiman lahayn 30 sano ugu dambeysay oo Kenya iyo Ethiopia iyo Carabta ay ku faraxsanaayeen inaan dhulka aan saan u aalno ayaan gaajo dhiman lahayn gaajo qofka markuu u dhimanaya marada waa in isku dadaa dhareerka waa in iska tirtiraa Soomaalida waxa looga baahan yahay dhareerka aniga anoo Nairobi jooga asbuucii hore ayaan live ka soo galay meesha anoo joogo runtaana sheegay waxaan ku faraxsanaan lahaa marka in la xiro meesha la igu xiran ku faraxsanaan lahaa maxaa lagu xiri lahaa ma tuug buu wax buu jabsaday maya ma wax buu qarxiyay wax buu dilay maya wadankiisa Soomaaliya u dooday marka haddii madaxdeena ay leeyihiin sharaf iyo karaama inta laga rabay ay ku hartay caawa waxa la soo ataagereeyay calankaas gadaashiisa la soo gareeyay astaanta calanka waxa libaanada senatarada wasiirada dadka Soomaaliyeed ardayda haweenka maxaa haray caawa airportkii Jomo Kenyatta International Airport labadii talaabo aad qaadid Soomaali jaakad wata mid dirac wadata mid maaragtay aan afurin ayaa ka hor imaanaysa marka maxaa noo haray maxaan nahay marka nation maxaan ku nahay marka maxaan sameyn karnaa annaga inaan social media soo fadhiisano oo dadkeena aan wacyigelin aan qaylin maxaan kaloo sameyn karnaa kuma talagelin saa idinku sheegay inaan soo galo laakiin ninkan senatorka markaan la hadlay uu sheekada ii sheegay uu yiri 10 saacadood ayaa dad lagu hayiri dumar iyo rag lagu hayay meesha uu yiri caawa sheekada lama maqli lahayn waxa loo maqlay hadday Soomaali iska caadi ah oo baasaboor caadi iska wata cid maqli lahayd ma jirto laakiin waxa lagu maqlay raggii wadanka xukumayay qaarkood ayaa caawa meesha lagu haystaa ama xisbi ka duwan ha ahaado Kenyaatiga oran maayo waxa tahay xisbiga nabad iyo nolol ama wadajir ama himilo qaran ama nooc uu doono xisbiga tiir ama wuxuu doono oran maayo the only thing he sees waxa kaliya ay arkaan waa wajigan Soomaaliya baasaboorkan waxaana ku xigi doonta kii Mareykan wata xataa leeyahay waxa ku dhaltay Soomaali baa tahay there's no difference leeyahay marka waxaan ka baryaynaa dawladdeena wax kasta ay sameynayna ha soo fariisto jaadkan sunta hal asbuuc ama 10 maalmood xataa ku dhawaaqdo xataa ay sameeyeen caawa anagoo faraxsan ayaan jiifanayna Ramadaan idoo lagu bijaan barkasan Ramadaan idoo lagu jiro fariisan laakiin caawa aniga dhiga ay u kaxsan maxay u kaxsan tahay
waddanka ingiriiska aan joogaa magaaladaan joogaa waddanka ingiriiska meel laga celiyay ma jirto laakiin waxaan dareemayaa qof airport maaragtay lagu haayay oo dhowr saacadood iska daya lagu haayay ayaan dareemayaa markii waan soo arkay Addis Ababa aan ku soo arkay oo 2 maalmood airportka lagu haayay markii dambana lagu soo sameeyay deportation qofka wuxuu noqonayaa wax yar bisada iyo doliw ka siiraanaya sababtoo waxa lagu leeyahay you're nothing waxa ma tiid ayaa lagu leeyahay marka waxaan aniga aan sii qaadan waayo iga sii xanaajiyay oo aan qaadan waayo waxay tahay arintan ay tahay dadka kuwa inay galaan rabaan waa bagooni waddanka ay ma gali kartid okay waddanka gadaas kale Kenya nabaday thank you very much laakiin waxaan qaadan waayo oo caawa aan la ciishooda waxay tahay dadkii masaakiinta ah ee qurbaha iyo dibadda ka yimid isbitaala ardaydii dad kale ka yimid oo la yiri isla airportka iyagoo ay ku jiraan la yiri ma aadi kartaan Soomaaliya meesha ka timaada lagu xilnaya sababtoo ah financial dhaqaale ahaan waxa leeyahay tikidinka goosta waxa leeyahay meesha lagu xilnaya dadka waxa laga yaabaa xataa shilinkii ugu dambeeyay inay soo isticmaalaan marka ka hadli mayno dadka Ingiriiska ku nool tusaalahan hadaan ka soo qaado qofka markuu ka soo dego garoonka weyn ee Heathrow ka soo dego Stansted meesha la yiraahdo iyo Gatwick waxay isu jiraan 100 kilomitir oo kale qofku wuxuu ku dhigi karaa waddankayga soo garin laakiin waxaan ku hadlaynaa Jomo Kenyatta International Airport ka hadlaynaa qofka diyaaradda ayaa baxa African ayaa baxda waxa baxa diyaaradaha kale ayaa baxa waxay leeyihiin walaalayaalow na gudbiya xagga aan aadno xagga aan ka sii baxno waa loo diiday waxa la yiri you go back where you come from tikidkaaga adiga gooso marka waan ku laabanayaa telefoona ayaa iga soo dhacaya Nairobi iga soo dhacaya hadda wax baa la ii soo qof baa igu soo celinaya oo Nairobi jooga oo agaasimo ah oo caan ah caawa ninkaas meesha ku jira markaan aan maqlay aad baan ula yaabay waxaan ogaaday Soomaali haddaan nahay wixii la doonayo lagu sameyn karo ayaan ogaaday marka wixii soo kordha waan idin soo gudbinayaa Solar Portal laakiin waxaad isku daydaan qof walba oo xildhibaankiina qof walba oo senatorkiina inaad la xiriirtaan oo aad tiraahdaan wasiiradiina la xiriirtaan wasiirada daawanayana kulli wasiir ayaa daawanaya ay yiraahdaan tan qaban mayso ay dawladda ka soo saarto dawladeena waxaan ka baryaynaa aan weydiinayna ma sheekada baryay gaartay waxaan ka baryaynaa in dawladda Kenya si diplomatic cable hoos loo la xiriiro arintaas ay ku dhacday haday ka soo jawaabi waayaan annaga gaajahana disho naftaha naga baxdo laakiin annaga waxaan nahay dad maaragtay taariikh leh waxaan nahay dad history leh dad waxaan nahay la yaqaano dad waxaan nahay oo Kenya iyo marka oo Tanzania iyo dadkan Uganda la isku dhaco anaga loo wacan jiray maanta dignitygeena inaan ku iibina ma ahan aamusnaan ilaahay wax kale yaa la helin Kenya waxay dad samayso Kenya danteeda ugu jirtaa meeshan Kenya hadii san lagu aamuso NFD way haysataa waxay leedahay Jubaland anaga iskale belada xawaanaga iskale way soo galayna marka dambe guriyahana ayaa loogu imaanaya ma aha inaan Kenya xabnahay Kenya ma nacbanin waxaan rabnaa mutual respect si wanaag adrisnimo iskula noolaano laakiin in dadkeeni astaamihii waddanka dadkii aan dooranay xasaanada lahaa senataradii wasiiradii xildhibaanadii dadkii mucaaradkii wixii dhan in airportka Nairobi aysan ugu dhex wareegaan ishiisa laga arka ushiisa lagu tumaa ayay tahay dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa jawaab xataa waxba yay ahaanin caaw aan ku seexana bari aan ku soo toosno aan ku qanacno in ay ummadda siiyaan ummadan way u baahan yihiin wabillahi tawfiiq wixii soo kordha xataa 9 saac suxuurta ay tahay waa idin ku soo laabanay waa idin sheegaya waa salaamantihiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaalina ha noolaato habeen wanaagsan